بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan rabaa inaan meeshan kaliib yar ka duubo oo macnaha aan fikirkayga ah. waxaan rabaa inaan Soomaali aan wax yar maanta mawduucay uu ku saabsan yahay oo ah waxaan arkaa meediyaha oo wax badan oo qaldan maalin kasta ay soo dhigayaan dad Soomaaliyeed oo aad ula yaabanahay oo aniga iga ficiliyay waxaa kamid ah nin iyo naagtiis ayaa meediyaha soo fariisanaya markaas waxa la isku bilaabaya sheeko meel taabad iyo shumis ayaa la isku bilaabaya ilma adeerayaalow waa iga yaabisa aniga Soomaalidu ma aragtaa waxaas waa dad Soomaaliyeed waa nin kulliba iyo xaaskiisii wuxuu yahay baan uma garanahay qadku soo fariisanaya wuxuu leeyahay hadii Ilaahay ku leeyahay gabadhiibu sidoo raba u taataabanaya meeshaas la istusaya ummadii Soomaaliyeed qadka la soo dhigaya waxaan rabaa marka gabadhan sidaan la yeelayo oo ama ninkeeda ahaade ama qof kale ha ahaade inaan wax yar u sheego gabaray waxaan ku sheegaa ninkan bari hadaad isqabtaan iyo hadaad isqabin waa kala tagi kartaan waxaan rabaa inaadna dhaqankii Soomaalinimada iyo wanaagga diinta Islaamka aadna ka tagin mana ahan hal iyo laba gabdho badan waayo wiilal badan oo hadda is soo dhigaya meediyaha oo wax rabaan isku sameeynayo oo leef oo dadkii xataa tusay waxaan rabaa inaan u sheego ilmaadeeryadu naga xishooda diinta Islaamka nooga xishooda afka Soomaaliga nooga xishooda dhaqanka nooga xishooda gabdhaha Soomaaliyeed oo ragga istaataabanayo banaanka iskeenayo meediyaha soo fariisanayo iyo wiilashaba waxaan leeyahay Ilaahay ka cabsada anigu ma rabo inaan qof sawirkiisa soo qaato aan meesha aniga WhatsApp-kayga aan soo dhigto ma doonahay oon uga sheekeeyo dhaqankaygana ma aha aniga waxaan rabaa inaan wararka markaan wax u sheegayo aan u sheego dhaqankiisa iyo waraagiisa aan u sheego marka ilmaadeerayaalow waxaan rabaa inaan idiin soo bandhigo haddaad iga qaadanaysaan iyo haddaadan iga qaadanba sharafta Soomaalinimada iyo sharafta dhaqanka ilaalisha markaan Soomaali ku leeyahay anigu qofkii afkaan Soomaaliga igula hadlayo waa walaalkay Soomaali ilaa isku af baanahay marka ilaaliya afka Soomaaliga waxa ku sheekaysanaysaan waa af Soomaali waxaad ku hadlaysaan waa af Soomaali waxa marka qof walba leeyahay Soomaalidii sidaanay diinta uga baxday Soomaalidii sidaanay dhaqankeedu noqotay annagii marka waxaan qurminaya 2 iyo 5 iyo 6 qof oo qadkaas isu soo dhigaysa nin iyo naag waxayna marka waxaan leeyahay war ilma raaxishooda oo xaasaskiina gurihiina sidii hore Alle ku dhalay ugu xishooda waxa rabtiin ku sameeysta daartiin sawiradan aad soo qaadanaysaan waxaan ay soo dhigaysaan iska daaya Ilaahay ugu cabsada annagana nooga xishooda wax daran hana tusina ilmihiina iyo ehelkiina iyo dhaqankiina ha ku dhaalina ha ku ciyaarnina oo tarbiyadiina ehelkiina iyo waalidkiina iyo walaalihiin iyo maalinta waalidiintiin iyo soo bartay ilaaliya marka intaas leeyahay runtii aad baan uga xumaadaa marka arko gabar iyo wiil qadka ku jira oo maaragtay oo waxay rabaan isku sameynayaan aad baan uga xumaadaa marka meesha kaliya aan leeyahay bal halkaan ugu gaarsiin kartaa weeye waxaan leeyahay khayr badan inta asturan oo wanaagsan oo sharafta badan oo raggooda iyo naagahooda isku astureeyeen khayr badan Allah siiyo inta aan asturnayna oo hadii Ilaahay ku reeyahay dhibkaan iyo foolxumadan sameeynaysan waxaan leeyahay Allah soo anuusho ayadaaba adduunyadan wax yar iska ah waxaan leeyahay Ilaahay ka cabsada rag iyo wiilal iyo gabdho waxa tiinba nidaam xumada iyo qashinka aad sameynaysaan iyo waxa sameynaysaanba rabbigeena uga cabsada annagana han ugu dambaajinina annagana waanadeena iyo khayrkeena qaata Ilaahay ka cabsada assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh